gaadiid iyo dadweyne aad u tiro badan oo tiradooda la qiyaasi karin ayaa maanta si ballaaran oo aanay u kala hadhin dadweynaha ku nool magaalada Burco ay soo dhaweeyeen wafdi ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaasna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro dadweynaha iyo gaadiidka tirada badan ee magaalada Burco ayaa iyagu wafdiga kaga hortagay duleedka degmada Qoyta waxaana wafdigan horkacay gudoomiyaha xisbiga wadani intii ay ku soo socdeen gudaha magaalada Burco oo gudoomiye Ciro uu salaansiiyay dadweyne tiro badan oo iyagu u heelana sida hiiri hooboona barbar istaagi lahaayeen xisbiga wadani isla markaasna ruuxayay caleemo qoyan waxaana socdaalkii maanta uu ku yimi magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isagu ahaa mid isagu ka duwan socdaalada ay hore ugu iman jireen gudoomiyaasha asxaabta qaranku waxaana socdaalkii maanta uu ahaa mid isagu xasuus gaar ah u leh xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana wadooyinka isku xidha magaalada Burco iyo degmada Sheekh lagu arkayay rinji lagu buufiyay wadooyinka kaasoo ku xardhan yihiin astaanta u gaarka xisbiga wadani iyo sidoo kale farda loogu talagalay sidii loogu soo dhaweyn lahaa wafdigan uu horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Marwo Hinda Jaamac Gaani Mujaahid Saare Halgan xildhibaan Cali Aare iyo xildhibaan Siciid Cilmi Rooble afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Ibrahim Mahdi Buuba wasiirka hore hawlaha guud iyo guriyada Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed iyo waliba xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade oo halkaasi ka hadlaya dadweynaha ku nool magaalada Burco amaan ballaaran u soo jeediyay sidii fiicneed ay u soo dhaweeyeen wafdigani ballaaran ee horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani nabadgelyaynu u baahannahay nabadgelyaynu kaga qaadaynaa cirayna hogaaminaya waa caalamada waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliland hamidoodu fikirkeena la caburinayo midnimadeena la caburinayo waynu cambaaraynaynaa dhalinyarada garadag isugu timi ee ka baxday xisbiga kulmiye ee ku soo biirtay xisbiga qaran ee wadani maxkamadda xidhaysa uma faqash waxaan idin leeyahay afbaa lagu lagu arsada karaaday lagu noqdaa lagu dhaqaa lagu hagaa ducada waa la iibsadaa qofkian badanatinaan abaar waa laga baxaa amurtu hadday xaq tahay ilayska kuwishido maanta haddii sharciga la fuli waayo bud baa kaga soo saarana soo maaha waa diyaar ma tihiin sharcigu haddii fuli waayo bud baa kaga soo saarana in waa dhoweyd anu nin ciisaan ahay waxaan dhignay faalkii waxaa la yidhi goormuu bilaabmay baa la yidhi sannadka islaamku odayaashii faalka dhigay waxaan ku idhi sabti buu bilaabmay waxay yidhaahdeen sabti hadduu bilaabmay siiraanyo wax ka xumaada mooyaane waxba uma hagaagayaan waxa kale aan idiin sheegaya doorashadii way soo dhowday madaxweynaha ballan qaaday qoraal buu ku ballan qaaday af buu ku ballan qaaday 26 Juun inay dhacayso diyaar garooba haddii qoraalku beenoobo oo afku beenoobo maxay noo ballana 26 Juun buu ahaa waqtigii doorashada waxaan idin leeyahay reer Burco waa magaaladii halganka waa magaaladii Ingiriiska cisay waa magaaladii afweyne kicisay waa magaaladii markii dambe aan u durahayna naga hiilisay ee u codaysay kulmiye maantana wadani u hiiliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo isaguna halkaasi kala hadlay dadweynaha ku nool magaalada Burco ayaa isagu sheegay in xisbiga wadani ay ka go'an tahay in aan hal maalin lagu darin doorashada isla markaasna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo qabto doorasho si dalka loo badbaadiyo walaalihi loo diro oo la ilaama shiri kartaa oo la ilaama tashan kartaa waxaynu ka dhinaanaa arrinta waynu diiday soo maaha dhalinyaradu maxay samaystaa haddii intii haldhayna la xidhxidhayo oo kuwaasay leeyihin ka daba tagaan wadda ku dhammaaday buraha noolaato buraha midowdu
برعا كليات تبتاع سوماليلاند كليات تبتاع سوماليلاند هناطو سوماليلاند هناطو صوتو ودولة بانين صوت عرض بانين صوت تلاحم بانين وين يسوون يمرنا si kastaba ay soo dhaweentani ballaaran ee maanta magaalada Burco loogu sameeyay waftigani ballaaran oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyadoo waxay soo dhaweyntii abad ugu ballaarneed ee loo sameeyay asxaabta qaranka Soomaaliland waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga Wanaag News Burco.